maadaama aan nahay arday Soomaaliyeed baahi badan oo wadankeena ka jirto waxaan abuurnay hal abuurkan kaasoo ka caawinaya qofka indhoolaha inuu kaligiis socdo hal abuurkeena keenaya wuxuu qofka indhoolaha ka caawinaya inuu asaga ismaamulo wuxuuna u qeylinayaa sensor maadaama qofka indhoolaha indhuhu leeyahay dhagaha ma laha hadda tijaabiso u shanaa ama qof u dhaweyno ardada jaamacadda City Code gaar ahaan ardada xarunta hal abuurka iyo tiknoolajiyadda City Code Innovation Hub ayaa waxay maanta soo bandhigeen hal abuur tiknoolajiyadooda casri ah kaasi oo xalal horumarsan u keenaya bulshada iyo suuqyada tiknoolajiyadda casriga ardada ayaa soo bandhigay fikrado iyo mashruuc cusub ay iyagu sameeyeen kuwaasi oo si gaar ah diiradda u saaraya horumarinta adeegyada bulshada iyo la jaanqaadida isbedelada degdega ah ee tiknoolajiyadda casriga madaxweynaha dawladda Puntland Mudane Said Cabdilaahi Deni oo ay weeliyaan qaar ka mid ah gulihiisa wasiirada madaxda gobolka kuwa degmada iyo mas'uuliyiin kale ayaa ka qayb galay barnaamijka tiknoolajiyadda ee ay soo bandhigeen ardada jaamacadda City Code madaxweynaha ayaa si gaar ah u bogaadiyay ardada hal abuur kale isagoo ku tilmaamay talaabada ay qaadeen mid dhiirigelin u noqon karta jiilka cusub ee hal abuurka Soomaaliyeed iyadoona madaxda kala duwan ee ka qayb gashay barnaamijkan ay dhiirigelin u sameeyeen hal abuurka cajiibka ee ay soo bandhigeen ardada jaamacadda City Code maaragtay ay tahay arrin farxad leh in muxuu ahaa City Code aan joogno karibiyo saxbaha gacmaha laga dhargaa maanta waxaan arkaa aqoontii inay si fiican yeeleen oo ay wixii barteen ay soo bandhigeen waxaan runtii halkan ku aragnay number 1 waan rabnaa inaan uga mahad celinno aad aan u bogaadino jaamacadda City Code waxyaabaha hal abuurka ah oo runtii ardada qaybtaas computer science ku dhigtaan ay soo kordhiyeen runtii aad baan uga mahad celinayna waa wax aad iyo aad lagu farxo inan Soomaaliyeed oo reer Boosaaso ah oo jaamacadda hadda City Code dhigtaa inuu sameeyay robot oo baabuur ah muxuu ahaa solar system nidaam maartay xoolaha maartay xirada xoolaha si loo waardiyeeyo maartay oo waardiyay meesha qof waardiyeyn lahaa alarm system waardiyeynaya nidaamka waraabka maartay solar maartay aqli badan oo u jeesanaya qoraxda marba dhinacay ka xigta u jeesanaya runtii waa hal abuur aad iyo aad u fiican waa ku mahadinaya waa uga mahad celinaya ardada jaamacadda run ahaantii wixii maanta halkan lagu soo bandhigay waxa ka muuqday diilo iyo in xagga tiknoolajiyadda jaamacaddu ay u qaaday horumar wanaagsan waxaan u sameynay ardada marka laga soo tago aqoonta jaamacaddu ay ugu tala gashay iyo curriculum ay diyaariyeen dad khubaro ah waxaan u sameynay space ardadu ay ku fakaraan wax allaale wixii agab ay u baahan yihiin aan u keenay si ay u sameeyaan hal abuurkaas oo qaybta ugu muhiimsan uu xallinayo mushkiladaha ugu waaweyn ee bulshadeena maanta haysta maanta ay soo bandhigayaan projects xal u keenaya caqabadaha wadankeena ka taagan dabcan xaruntayadu waxay ardada Soomaaliyeed u diyaarisaa in ay waxa ay barteen ay xal ugu raadiyaan caqabadaha haysta caqabadaha ka jira wadankeena maanta ardada badankood waxay soo bandhigayaan projects kuwaas oo actually xal u ah caqabadaha haysta bulshada tusaale ahaan waxa ku jira project smart irrigation system hadii beertaada uu qof ku waraabin jiray maanta waxa lagu sameeyay system si automatic ah ku waraabinaya beertaada aan u baahnayn qof shaqaalaysid projectada noocaas marka waxa ka qayb qaadanayaan wax soo saarka wadanka